السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال kusoo dhawaada barnaamijkeena akhbaaraadka Bollywood anoo kusoo qaadan doono qodobo aad u muhiim ah degdegnin shamshooter Salmaan Khan toogan rabay oo booliiska soo qabteen iyo cidda soo adeejisay megastar Salmaan Khan ayaa naftiisa halis ku jirto kadib markii gacanta lagu dhigay nin aragti ku toogan rabay ninkan oo qirta in la adeejiyay Salmaan Khan uuna lacag ku qaatay dilka Saluu arrinkan oo baaritaan dheer lagu sameeyay ayay booliiska ogaadeen sababta ka dambeysay nin lagu magacaabo Rahul oo shaqadiisu tahay in lacag lagu siiyo dilka shakhsiyaadka laga adeejiyo ayaa u soo amabaxay misena Mumbai u yimid siduu ku dili lahaa megastar Salmaan Khan bishii Janaayo ayuuna Mumbai soo caga dhigtay balse howshiisa xilli hore wuxuu u qaban waayay coronavirus oo si aad u faafayay ninkan Salmaan Khan kaliya dilkiisa lacag kuma soo qaadanin sidoo kale nin sarkaal oo ciidanka booliiska Mumbai ka mid ah ayuu sidoo kale rabay inuu dilo oo lacag ku soo qaatay waxaana la sheegay in muddo 2 maalmood ah inuu ku dul wareeganayo guriga Salmaan Khan ee xaafadda Bandara ku yaalo waa shamshooter halis badan ninkan meel aad u fog ka toogan karo qofka sida awgeed meel ku aadan guriga Salmaan Khan waana dabaqa sare oo Saluu taageerayaashiisa ka salaamo ayuu liish ama shish saartay wuxuuna rabay inuu madaxa ka toogto Salmaan Khan oo meesha uu soo istaagay balse booliiska ayaa qabteen markii baaritaan lagu sameeyay waxaa caddaatay inay soo dirsadeen dad Rajasthan ka tirsan iyo maafi waaweyn sababta Salmaan Khan loo dilayo ayaa ah kiiskii ugaarta ee deerta ee Saluu lagu soo eedeeyay inuu ugaarsi ahaa dilay ugaarta nooca deerta loo yaqaano ee dunida ka dhamaanaysa xilli uu dubis ku jiray sanadkii 1999 ayuu dilay 2 ka mid ah ugaartaas ilaa maantana kiiska waa loo haystaa jalaagan dadka deegaanada oo ugaarta deerta diin ahaan u isticmaalaan ayaa wacad ku maray inay Salmaan dilaan ama ahaan markii ugu horeysay ee Salmaan Khan sidoo kale lagu soo weeraro mar walba uu ka badbaaday hadeerna nin shamshooter ayaaba lagu qabtay oo Salmaan Khan cabir saartay si uu dilo maxaa ka xiiso badan inay filim ka soo wada muuqdaan Aditya Roy Kapoor iyo Tara Sutara ee xogta filimkooda cusub atooraha soo jiidashada badan Aditya Roy Kapoor iyo gabadha fanka ku cusub Tara waxay isla sameyn lahaayeen filim Dawn oo iska lahaa Mohit balse si lama filaan ah Aditya ayaa mashruucan iskaga baxay taageerayaasha ayaa ka niyad jabeen arrinkaas maadaama la xiiseynayo wada shaqaynta labadan xidig si kastaba ahaatee warar xiiso leh oo soo baxayaan waxay sheegayaan in labadooda filim kale hogaamiyaal ka noqon doonaan wararkan waxay sheegaan in filimkan agaasimo ka noqon doono Axmed Khan sidoo kalena waa mashruuc dagaal u badan oo ay labadooda hogaamin doonaan xitaa doorkan Tara waa door ay dagaalami doonto inta badan waa haddii ogolaato misna saxiixato Aditya xilli hore ayuu doorkiisa isku diyaariyay wuxuuna doonayaa durba in dubista la bilaabo waana mashruuc xiiso badan mashruucan Sanjay Dutt ee xiriirka ka dhaxeeya qoyska baad oo dhexda kaga jiraan kiiska dilkii Sushant Singh lama inkiri karo xaqiiqada ah in qoyska baad gaar ahaan Mahesh Baad iyo gabadhiisa curadka ah Pooja aad ay ugu dhow yihiin Sanjay Dutt sanado badan markii warkan xanuunka Dutt uu gaaray Baad si gaar ah ay u taabatay Baad sababta wuxuu ka dhawaajiyay Sanjay Dutt muddo ku dhow 30 sano waxay wada sameeyeen filimo sida Sadag Naam iyo Kubzad Baad sabab wuxuu ku sugnaa aan ku celiyo hadalkaas Baad wuxuu ku sugnaa isla Dutt agtiisa dacwadiisa iyo xiridiisa arrimo argagixiso oo lagu eedeeyay qaraxyadii 93 dhacay magaalada Bombay oo hadda loo yaqaan Mumbai Baad ayaa sheegay inuu xanuun gaar ah uu dareemo markii loo sheegay xanuunka saaxiibkiisa Sanju haatan Mahesh wuxuu dhexda kaga jiraa buuq waana arrinta hadda ku taagan Baad iyo xiriirka kala dhaxeeyay Reha Chakraborty wuxuuna awoodi kari waayay inuu gacanta qabto Sanjay Dutt markuu aad ugu baahnaan Pooja Baad ayaa naftageeda aad ugu dhow Sanju waxayna tiri musiibooyinka ayaa dhexda dabaalanayna waana inay adkaysi muujiyaan qof walba Sanjay Dutt waxaa 28 bishan tiyaatarada loo saarayaa filimkiisa Sadag 2 oo ay la wadaan Alia Bhatt iyo Aditya Roy Kapoor